shirkan jaraa'id ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ku qabtay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Faarax Maxamed Cismaan Faarax Gacme ayaa waxa uu kaga hadlay falkii shalay maleeshiyad u abaabulaan qaab qabiil nawaaxiga deegaanka Teedaan ee gobolka Hiiraan dad reer guura ah oo ku guuraya gaariga nooca loo yaqaan dhaynada isla markaana u guuraya isla deegaan u dhow deegaanka Teedaan oo dhawaan ay roob ay ka deenay jidka u galeen rasaasna ay ku fureen gaarigii dadkii saarnaa taasi oo sababtay dhimashada dadkii saarnaa gaarigaasi 6 qof iyo dhaawaca 5 qof oo kale kuwaas oo loo geeyay isbitaalka degmada Maxaas wasiirka oo ku hadlayay afka labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa u tacsiyadeeyay ehelada dadkii dhabku u gaaray ee laayay dadkooda isla markaana falkaasi ku tilmaamay mid uu xoosnimo ah in la xasuuqo dad aan waxba galabsan oo qaarkood caruur ah fariin uu diray dowlad goboleedka Galmudug iyo waxgaradka shakhsiyaadka geesay falkaasi ay ka soo jeedaan intaba awalo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan rabaa inaan halkan tacsi uga diro dadkii masaakiinta ahay ee birimageydada ahay haweenka iyo caruurta ahay oo lagu baabi'iyey deegaanka u dhaxeeya degmada Maxaasad iyo degmada Matabaan oo gacanta ka xaq daran ay halkaas ku baabi'isay oo ahay fal wuxuusnimo fal nacasnimo fal fulaynimo dad masaakiina oo ilmo saqiira 4 jir u yar yahay 10 jirna u weyn yahay hooyadii dhashay arigii doonka ahaa naqa lugta ku gaari waaya baabuurta lagu soo raray in lagu baabi'iyo halkaas qaarkoodna waliba gaarigii dab lagu la qabto arrinkaas waan cambaaraynaa ahaladii iyo qaraabadii iyo dadkii ay dadkaas ka baxeen waxaan leeyahay samar iyo iimaan Allah idinka siiyo dadkii halkaas ku dhaawacmayna Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga rajaynaa caafimaad degdega ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad degdeg ah siiyaan leeyahay waxa kaloon rabaa inaan u mahad celiyo dadkii deegaanka oo mucjisadaas ku dhacday oo maatadoodii la baabiyay oo xooloodii la baabiyay oo ilaa hadda aan wax talaabo qaadin oo ka war sugaya haday mas'uuliin tahay iyo haday wax garad tahay iyo haday tahay dadkii xaq darrada wax ku falkaas ku sameeyba ayagoo dhan walba eegayo aanan wax tilaabo qaadin waan u mahad celinayaa waxa kale oo aan rabaa inaan halkan aan kala hadlo anoo ku hadlaa afka golaha labada gole ee dowladda Hirshabelle wasiirada iyo baarlamaankaba waxaan rabaa inaan halkan aan kala hadlo maamulka aan diriska nahay ee Galmudug oo arrinkaas dadka geystay ay ka soo tilaabeen xuduudooda inaan iraado war waxa dhacay waa wax mucjisa waa wax lala yaabay waa aakhirkii Shacbaan waa soo dhaweyntii bishii barakaysanada Ramadaan in ilmo saqiira iyo dhiig muslim iyo maati wax garad la ismadood lagu soo dhaweeyo bishii barakaysneed waa wax aad iyo aad looga naxo waxaan baaq ugu dirayaa inay dambiilayaasha falkaas geystay si degdega ay gacanta ugu soo qabtaan sharcigan ay ku horkeenaan taas haday dhici waysa marka anagu dadka deegaankan wakiil ka nahay mas'uuliin ka nahay waxaan anagu raali ka noqon karna marnaba maaha in canuga farjira ilma saqiira 4 jirna u yiraahdo 10 jirna u weyn yahay iyo hooyadii dhashay iyo xoolahoodii la baabiyo waxaan indhaha ka fiirsanayna maaha haddii sharciga maamulka Galmudug horkeen waayo annaga sharciga horkeensanayna meesha joogaan ugu tagaynaa dawladda yiraahdo sidoo kale wasiir Faarax Gacme ayaa ku dhaliilay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya inuu ka gaabiyo wax ka qabashada colaadaha qabaa'ilka ku saleysan ee soo laalaabtay ka dhacay sanadihii ugu dambeeyay deegaanada u dhaxeeya Maxaas iyo Matabaan ee gobolka Hiiraan wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya oo ah shakhsiga ka soo jeeda deegaankaas haddana ka soo jeedo dadka dembigaas geysana dhibaatadan waxay socotay muddo dheer hadda ka hor waxaan ugu tagnay xafiiskiisa annagoo xildhibaan federaal iyo kuwa Hirshabelle leh waxaan kala hadalnay maadaama uu yahay wasiirka arrimaha gudaha meesha wax ka dhaceen ay deegaanku ka soo jeedayeen dib u heshiisiintii dalkaas ugu qaabilsan yahay inaan halkaas si wada jir aan u aadno arrinkaas aslaax beenunaas aan u wajahno oo dawladnimo leh markii hore uu naga balan qaaday haddana markii dambe waxaa noo muuqato
inuu ka cagajiiday waxa kaloo wax lala yaabay ah 48 saac ka hor dhibkii dhacay oo aan suuqii meeshaas ka dhacay oo dadkaas maatada lagu laayay ilaa hadda cid ka jawaabtay inaysan jirin taas waxay noo cadaynaysaa dadkii wax magaratada waxaas geystay iyo dadkii ka soo jeedeen bayna arrinkaas raalli ka yihiin aan anagu u qaadan karnaa marba haddii aanan cid hadda arrinkaas inay ka xun tahay muujisan aysan jirin raaligelin ay ka bixisay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Faarax Maxamed Cismaan Faarax Gacme ayaa ka codsaday maamulka gobolka Hiiraan iyo kuwa degmooyinka Maxaas iyo Matabaan odayaasha dhaqanka ugaasada labada dhinac iyo culimooyinka inay qaataan doorkooda dadkaasna ay kala dhex galaan si waajibaadkooda horeba ahaa jiray aan ugu baaqo aan og inayna ka jiifin maamulka gobolka Hiiraan heer degmiye heer gobol sida gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha labada maamul ee degmada Matabaan iyo degmada Maxaasado inta u dhaxaysay wuxuu ka dhaceen odayaasha dhaqanka ugaasyada culimada diinka waxgaradka inay arrinkaas aysan indhaha ka laaban ay waajibaadkooda ku aadan ay ka gutaan sababtoo ah meeshan waa ramadaankii saddexaad oo arrinkan uu ka dhacaa in ramadaan walba lagu soo dhaweeyo dhiig muslimiin ilaahayna raali ka maahan annaguna raali kama nihin waxa masiibooyinka iyo abaaraha iyo dhibaatada ay dadkaas ugu dhacaan waxa kamid ah waxyaabahaas oo ilaahay raali keen iyo dhiigaas muslimka iyo marista maalin walba dhiigooda lagu daadina ayadoo xitaa bil qeyr lagu jiro oo aysan ahayn inta badan bishii saddexaad oo ramadaan oo aan anagu soo joogno waayeen arrinkan dagaalka meeshaas ka bilaabana hadda cidii bilowdana ayada taqaan wax adduunka aan qara ka macaashayse dadka aan la hadlaa ugaasiyada leh oo dhaqan kale oo culimada diin kale oo maamulka heer gobol iyo heer degmo leh oo gobernatoro gobolka iyo ugaaska beesha ugu horeeyaan waxaan rabaa inay ayagu waajibaadkooda ka gutaan ayagoo ilaahayna ka baqa inay arrinkaas u istaagaan haddii waxaas aan indhaha ka fiirsano ilaahay baaban waxaa khatar ugu jirnaaba inuu noo wada caroodobo ka dembiga geysana iyo annagaba haddaan indhaha ka fiirsano isku noogu caroodo waa mahadsantaha Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Soomaali News Beledweyne